goorfiida waxaanu ku sugannahay guriga Maxamed Saciid Cabdi Biike waxa halkani si gacmo furan iyo kaliya laabo noogu soo dhaweysay anagoo aabahda VOA marwada Biike ama Maxamed Saciid Cabdi waa Faadimo qurux wanaag Faadimo ku soo dhawo VOA wandawla bismillaahir rahmaanir rahiim dhawaysada Mustafa baan ku salaamay adina waan ku soo dhaweynaya si aadiyaada waliba qalbi furan ayaan kulay ku soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaadba walaal waxaan salaamaya ummadda islaamka meel kasta joogto waxaan salaamaya labadayda waalid dhammaan walaalahay awlaadayda waalidiintayda kale aad baan u salaamaya waxaan salaamaya xaajkayga oo hor fadhiya isagana si kaliya laaba aadiyo xoog jacaylku hawaaro maadaama barnaamijka caweyska Washington oo caawa xaajigaagu marti noogu yahay oo marka kalena de fanaana gurigiimka maadaama dhex joogna sheekadu waa xaaji maxaad caawa anaga iyo dhageystayaasha aynu nadaahnaa marwadu way u soo xushay ama heesaha odaygaagu qaado heeseeba aad ku soo jiidatooda ku jeceshay waxaan ugu jecelahay oo aanan dhageystaa dhab ahaantiina anaga naga hadlaysa qofku jecel adoo jecel ilaa waa janoo kale actor waa sida marka waxaan leeyahay heesta bulshada islaamka mid kasta joogtaan iyo taageerayaashiisa iyo kuwa iyaga bade iyo isaga qurasiire nagula raaxaysta qurux wanaag mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahad celinayna sida ay barnaamijka quruxdiisa noogala qayb qaadatay soo dhawow Maxamed Saciid Cabdi oo Biike ku magac dhab horta Biike maxaa lagu bixiyay aad baad u mahadsantahay isaga Mustafa su'aashagan kaaga jawaabo Biike waxaan ku xumaashaha deedna magacu Bakheeri buu hayo sadarteed baa Biike la soo gaabiyay wala soo gaabiyay Bakheeri baa la soo gaabiyay ma sha Allah baad u mahadsantahay Biike halkeed ku dhalatay goormaad sa dhalatay adigoon da'daada qarinaynin saxdaana noo sheeg sagalay waad mahadsantahay anu Muqdisho ku dhashay waxaan dhashay 84 waxaan ku koray Ergaabo heestii ugu horeysay aan qaaday waxay mirisho ka bacdi heestaasi goobtii kugu horeysay ka qaaday ma xasuusato waxaad Ergaabo baan ka qaaday walaa haye sanadkuna mar waqtigaan kaban ka bartay bay ahayd 2004kii ma sha Allah aad baad u mahadsantahay taariikhdeeda markaan soo koobay soo ururiyo horta waa inta mahadsanid caawan ku soo dhaweynayna kuliyo gobonimada ku leenahay Faadimo qurux wanaag sida quruxda badan ee caaw nagala qaatay xaskayguna aad baan salaamay way hor fadhiday waxaan leeyahay si sharaf ku noolow waajibka saaran baad gudatay waxay tiri nafku jecelaado jecel bay soo qodatay Maxamed Saciid Cabdi Biike fanaaniintu way kala gedisan yihiin fankuna uu kala gedisan yahay inta badanna waxa aad ka heestaa waxa weeyaan heesaha amaanta jacaylka adduunyada haday noqoto waayaha kala gedisan ee adduunkana aynu ku noolnahay korkiisa yaal haday noqoto fanka markaynu dhinaca quruxda badan aynu ka nimaadno Biikeyo dhankiisa kale opposite-ka aynu tagno ama ka soo horjeedkiisa kullay waxaynu filaynaa waa dhinaca xumaanta Soomaaliya aad baad u mahadsantahay sagalay fanku waa mid laba aflaad boo dhinaca loo isticmaalo haye laakiin markaynu soo qaadano intooda majaajilada ah ma sha Allah wuxuu yiri nin baa waxa arkay gabadh saa u sii jeedo markaas suuri isteelka hore indha dilayay inteeda dambe istaahila macna way ka sii jeedo yaani inta hore ma de malaha way u falxumeed inta hore waa laga yaabaa waxa kamida cibaadeysan cindiga ku hay'adaniba way igu celin ciyaaray haye sagalay maraan bari shisho joogay baran meel la yaalo nin jiimi duufaan la yahdo baan wada socno fanaan aad u cod macaan dabeedna nin baa naga soo hor baxay waxa leedahay kilwe ma ilaabini dabeedna waa ninkan soo socda oo adigu hadalkii baa naga yar taagtaagmay dabeedna wuxuu igu yiri markii uu ii jawaabo gabay igu jawaabo wuxuu igu yiri adeer waxaan la qatoobay cagahay qaloocshay waa jacayl igu qaaday intaan u qushuucay asaan dhig xunna maaha madow qaab daran maaha waa qeyrka uu dhaxo quraankeena amaano baran bay qoton tahay aan u qeyla dirta anigu un baan idhi marka suugaantu de qayb majaajila way leedahay qayb de ayna way leedahay laakiin qayb de qosalna way leedahay ma sha Allah aad iyo aad heesaha waynu aragnayo waa la bedelaa imika dee dhalinyara soo bedesha rag waaweyn oo caan ku ahaayo magaalada joogaana way jiraan oo bedeli jiray heesaha dhanka kale u rogi jiray
intii aad heesaysay ma jiraan heese lagaa bedelay haddiiba se lagaa bedelay bal mid inooga soo qabo markii hore siday ahayd iyo sida laga dhigay hees axmed salaam bedel sameeyey heestan kusoo shacbaxay hadduu onkod yahay jacaylku nimciyo roob soo iftiimay gugoo ina soo abaaray adigu saasay ahayd dabadeedna wuu bedelo wuxuu yidhi hadduu dhagax yahay jacaylku lalaan iyo nin waalan tuuray adaan kugu dhufan lahaayo dhashtaasan kaaga saari la nin weriye oo caana maasha allah aad baan u salaamaya xasan maxamed yuusuf markaa way jiraan heese la bedelo sagalay kusii darso oo marka xagga kale laga eego dee suugaanta dee waa midida labada afle oo haddii xag kale loo isticmaalo dee waxay noqonaysaa casaanka yar baa ku caawimaya iyago lee caagadii hee cildaatay dee markii caayadii lasoo qaato waa saas ma ogtahay laakiin wax waliba asturaadda iyo ammaanta iyo quruxda bay ku fiican yihiin oo dadka waxaan dee isticmaalo waxaan odhan lahaa mar kastaba dee fanaaniinta ku heesta ereygu ka sugaanaysan yahay ee ka xikmadaysan yahay in bulshada loo tuso ayaa ku fiican inteeda xunna in layska tago aad baan u salaamayaa taageerayaasheeda waan jeclay meel kastay joogaan sagale calankiina kor bayn leenahay yaa salaam waa hagaag diika inagoo mawjadahaaga qaybta muusiga kala bedelaynaa caawa waxaad gacanta ku haysaa cuudkii oo ah kamankii bal heesahaaga inta soo baxda way soo baxdaye inta weli jidka kusoo jirtay hawada kusoo jirta ee aanad bulshada usoo bandhigin ee aad hadda bal ereyadooda hayso bal mid iyo laba aad inooga qaadideen aad baad mahadsantahay sagaley heestan waxaa i siiyey qaasin jaamac xujaale qaasin macruuf waa nin fanaan oo aada u qaaliya midhaheeda waxaa le xuseen farjar laxanka waxaa le qaasin macruuf marka sidaa darteed waa heestaan soo wado marka ka hore inoo qaadimay ka dambaan qaadaya beejka maasha allah aad baan u salaamayaa fanaaniintu meel kastay joogaan iyo sagal mustafa xasan nuur oo caawa iyo qaadisa waraysi iyo bahweynta v o a iyo taageerayaasheeda meel kastay joogaan waxaa leeyahay cisiga sharafku noolaada raxmaanku haydin casiyo haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashiqa haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashiqa mar baan qiira dheeriyo riya aan qorshaystiyo hami aan qastaayo heesahayga qaada mar baan qiira dheeriyo riya aan qorshaystiyo hami aan qastaayo ammaanteeda qaada markaan qamar xusuustaba qarka noo dhaxeeyo quruxdeeda gaarka qalbigan ka ooya haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantay haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada
dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee sagale. waa hagaag heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno cusub ee hawada kusoo jirta ee jidka kusoo jirta heestaasi bk yaa kuu tumaya waxaa ii tumaya muuse shanqaali aan aad u jeclahay maftuux cadceed oo iyo xaaskiisaba aad baan u salaamaya deeqsan fanaaniinta meel kastay joogaan aad baan u salaamaya aad baad umahadsanta sagal waa hagaag kow maaha oo laba maaha oo saddex maaha intaynu aragnay fanaaniinteenu waaweynaa markaynu soo qaadano rabbi naxariistii jannaa ka waraabiyo maxamed mooge liibaan cumar dhuula cali fanaaniinta aad u tiro badan oo aan la soo koobi karaynin oo weliba inkastoo walow ay aad u kooban tahay inta iyagoo heesaya kamanka isku qaraacaya aad baad umahadsanta way jiraan fanaaniin fara badan laakiin fanku kii horuu ahaa markaan eego maasha allah ka dambena ma odhanaya dee wuu xun yahay laakiin nimankii hore waxay haayeen niman aan aada loo gaari karin qalabkan casriga may haysanin waxay ka samayn jireen gacmahooda maasha allah aad bay mahadsan yihiin aad baan u salaamaya maryan mursal ciise bootaan xasan aadan samatar ilaahu naxariista cumar dhuule axmed iyo maxamed mooge dee ha tirinin boqoradii jacaylka khadra daahir allahu naxariistay saare axmed jaamac kisi dee waa beri oo dhan anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabba ahaa qaybta ciyaartooyda ka tirsanaa waa beri waxaa garanaya faniis sheekh daahir iyo khadra daahir iyo aad bay garanayaan isan gubiyo maasha allah dee magacooda halka kuma wada koobayo waan wada salaamaya waa beri oo isku duuban maasha allah markaan ugu dee isagana allahu naxariistin leen ya salaam laakiin anigu dhal waa beri baan maasha allah bal haddii aad naga maqashiiso maxamed mooge mid ka mid ah heesihiisii aad baad umahadsantahay waxaad la joogtaa jannaduu ku geeyaa ama raranka jahannaba jacaylkuna sidoo kale wuxuu kuu jeheeyaa ama laama kula jaba sagale lama gaarsiin kara halkiisii maasha allah ya salaam halkaas iigu jooji halkaa iigu jooji axsan haddii bal kamanka shanqadho gooniyo bixiyaa bikeyo waan gartay inkastoonan anigu aad u kala aqoonin haddana marka kamanka dhalow laga siiyo hees kasta oo soo gasha waan sii garan karaa ama dhawaaq kasta oo laga yeedhsiiyo bal mid ka mid a haddaba dhinaca gabdhaha fanaaniintii waa beri hooyadii jacaylka haddaynu soo qaadana khadra daahir ciig maasha allah bal ina maqashii isagale allaha casimo khadra daahiraad baan u salaamaya codkeeda waan jeclahay waxaan u malaynayaa ama aniguba aaminsanahay inay ahaayeen iyadii cumar dhuule labadii qof ee jacaylka aad ugu tegey maasha allah isagale wiil iyo gobolnaan leeyahay waan salaamaya fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada aad baan u salaamaya waa beri kooxdii waa beri aad baan u salaamaya waayo isagale anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabba ahaa markii hore wuxuu ahaa ku-xigeen buu ahaa u ahaa shareeco maamulkii buu sarreeye ee waa beri way garanayaan fanaaniinta waa beri oo dhan maasha allah aan soo qabto heesa ay la qaado fanaanka codka macaan caabi miro dacar cabdinaasir macalcadiid baa tumay laakiin lama gaadhayo bal waan isku eegaya gacantiisa aad baad umahadsanta sagaleey waynu salaamaynaa inta fanka jecel oo dhan meel kastay joogaan sagale waxaanu leenahay fanka markaad aad u eegto sagale kabanka iyo boongaha
ayaad moodaa inuu ku kooban yahay maasha allah muusiga kale de waa caadi laakiin dareenka fanka marka la leeyahay kabanka iyo bongo ka yar maskaxdu ii degtay intii yaradan ku garab fadhiyay